هي إن وحن وريقي دونا يوسف horta inta ay yiraahdeen saaxiibadeeda kale ayaa la qaba wax kastaaba oo sidii faa'iido u leeyahay badan isaan sheegay horana uu leeyahay social media faa'iido oo xagga wanaagsan laga adeegsada marka haweenku kaalin muhiim ah ku leeyahay oo muuqata oo barnaamij fikirkooda ku cabiraan saa la sheegay ganacsigooda ku soo bandhigtaan wax wanaagsan bay ku qabtaan taa bedelkeeda haddii aynu dhanka xun ka eegno dhankii xun maana ma garanaysaa cid walba ugu soo gelaysaayo nin wada degay oo dadku u jeeraya social media waa iska wadada soconaysa mar kasta wax wanaagsan la qabtana wax wanaagsan baa dadka kala soo kulma sida ay sheegeen guurkii hablaha hore waxaan la qabaa inuu guurka fududeeyo oo dadka xiriirkooda aad oo marka waxa la faa'iido soo gelaya miyaa guurkaas faa'iido waxa noqonayay guurka berigi hore waa la jabi jiray badheer bala socon jiray inta inaad baadi doonto telefoon inaad dirto WhatsApp-ka hay WhatsApp-ka iyo kuwa fudud ee iimada waxa laga wada hadlay reedo ayaad markaba ka wada hadlaysaa inta doonto la hajo waxa weeyaan qariyatan waaxida ku wada nooshin tuulo qura ku wada nooshin marka aad qofka halan ka wada joogtaan iyo qofka Facebook wada joogtaan waa isku mid imka saab TV dhalinyarada ka wada shaqeysa boqolkiiba Facebook aan iska baran adiga agana haatay sax marka sidaas oo kale uu faa'iido u leeyahay caqabado guurka ku keena nin baa sheekeeyay Yurub taa jooga wuxuu ugu yiri gabadh baan la sheekeysan jiro social media kala sheekeysan jiray sax gabadha in badan baan waqti ku lumin jiray waan la xiriiri jiray waan la hasaawi jiray wax wanaagsan taabinta ku bixi jiray oo dhan ku bixin jiray markii ay gaadhay xaaladdu soo dhawaatay ayagoo labadooda Yurub wada joogeen ayay noqday inay kulmaan inantii buu yiri isugu jarmalku joogay inaad kolaydo inantii bay isku yimi Soomaal bay soo gashay ninkii soo dhaweynayay sidoo inantii wuxuu ku qaabili lahaa isjeclaayna muddada geediga soo wada waday iyo diyaar garoobay inan yar buu moodayay inanta inan muddo dhaaftun baa soo baxay muddo dhaaftay qarnigu muddo dhaafka qofku wuxuu doonayay baa jira waxa ma garanaysaa waxaana doonayay hadda meesha kaaga soo baxo ama kaag way noqotaa idinku laftigiina way dhacdaayo yarba u saato soo ilmo yaray waa ku soo wada xagaana inantii ninkii sidoo uu u diyaar garoobay qaabilaadii ina weyn baa soo baxday ninkii koon kala laba cisha dhakhtarka lagu dabiibay inantiina waa kaag ku noqoto niyad jab iyadoo xanuun kala ku abuurmay taa bedelkeeda ragii ilaa dhawaan rag dumarka dil sheegay ragana la sheegay inan baa Yurub taa tagtay oo nin bay isbarteen oo in muddo wada socdeen inantii wax isla afkarteen inay xagga ay ku wada noolaadaan dadaal dheer bay u gasho inantii oo iyaduna waxay samaysay dumarku aad bay u naxariis badan qof markay jeclaadaan qof niyadooda siiyaan rag aad bay marka muxal soo karaa mu jirin video call kan ay noo sheegay fihmi ma qofka waa is arki lahaa dooda yahay anigu horta sheekada mid igu dhacday ma aha laakiin waa mid igu sheegay laakiin isaas bay soo baxday isaas ay soo baxday ina mudan sheekaduna qofkuna hadii wuxuu sheeka tahay qofka de laguma siiyay saytuun baa loo qaatay inanta dumarku taa aad ugu naxariis badan yihiin inantii taa badan baa u gashay ninkii way de wax ay gashay inay de ninkii soo kaxayso meel wanaagsan noloshan de ma garanaysaa ay nolol ka duwan tan ay ku nool yahay si ay ku wada noolaadaan ninkii taa bedelkeeda soo dhaweyn iyo de magarasa diyaar garoobay marka awliyo dhan u dhameysay gashay asxaabteedii bay soo kaxaysay habliheedii inanka jacaylkayga baa imanaya kaalayo airport bay yimaadeen airport markay yimaadeen baa nin dhuuban bay yaqaaneen bergu diina sameeyay dhuubnaa bay soo geli jiray buurano naaxin baa inanta way dhaxdo ayadana koomay geli gaadhay ninkii jacaylkii uu burburi gaaray laakiin ehelkii kale golaha keentay ayaa ku guntaday oo tiri geerish baa la geeyaayo jimka la geeyaa ninka waa soo dhoobaya miisaankaas oo muddadii qalbiga uu jacaylkiisa ma hela wax walba uu cuna markaas uu naaxay miisaankaas laga dhaco dumarku ma jecla qof buuran oo awal weyn oo de ma garanaysa oo dhisi lahayd de wata geerishkii